arrinta gobolka gabagabada Jubbaland bay ka tirsan tahay khilaafaad ka yimid maamulkii hore ayaa wuxuu sabab u noqday gobolkaasi inuu dib u dhacna ku yimaado go'doonna uu galo taasaa waxay ka mid ahayd dowladda federaalka aan ka wada hadalay in ciidamada gobolka la geeyana xal laga gaadho maamulkiina Jubbaland ay soo magacaawdo dib u heshiisiinna dadka loo sameeyo loona furo ilihii dhaqaale iyo waxqabadkii deegaankaas oo muddo xayiraad ay kaga jirtay taana waxaa bayso ah maamulka aan magacawnay inuu gudihii tago dadkii lala kulmo dib u heshiisiin la qabto hay'adaha caalamiga waxaan uga baahanaa inuu soo gudbino maamulka laga shaqeeyo wax cad oo la taaban karana ay noqoto barnaamijka gada waxaan ka qabanayna inay noqoto waxaan rajaynayaa maamulkaasi kadibna inaan u diro maamul heer state dowladda federaalku ay qayb ka noqoto dadkii la isu keeno cid kasta oo khilaaf ka dhaxeeyo ama santarka Jubbaland ee bayska halkan ha noqoto ama gobolka dhexdiisa ha noqoto waayo maamulka aan maanta uga baahanahay ciidanka ATMIS ee maanta tagaya ee raba inay ka soo galaan xuduudka ma jiro maamul ay la shaqeynayaan ma yaalo ciidan soo raacaya oo dhulkii qabanayaan ma jiro sababtoo ciidankii markii hore state-ku lahaa uu burburay ciidan federaal oo baysana ma waxa hadda heshiisyada ku qoranna waxay tahay waxaa haynaya meelaha la qabto local force ama ciidamada state-ku leeyahay waana wax meesha ka maqan taa markaa annaga wasiirkana uu nala jooga arrimaha gudaha arrinta golayaasha dowladdana waan kaga wada hadalay arrinta gobolka gado waxay u baahan tahay system dowladnimo laakiin faragelin lagu sameeyo iyo cidaan mas-uuliyadda qaadi karin oo mas-uuliyad sheegata iyo wax walba inuu dowladnimadu ay baaba'da macnaha ma samaynayso waxaan rabnaa inaan dib u heshiisiin ka galno waxaan rabnaa xataa kuwa maamulada noqonayaay cidda aan u diraa gudaha intay tagto dadka la kulanto oo ay aragto cidda markaa dadku ay warkaan sababta waxaan rabnaa inaan council u dhisno qof la magacaabay macno badan ma samaynayo councilku waa maamul la dhaadhiciyey oo dadku ay iska soo doorteen oo la xisaabtami karaan inaan middaa bays uga dhigno annagoo la kaashanayna dowladda federaalka ana arrinta gobolka gada waxaan rabnaa inay cid waliba naga caawiso maamulka in lanaga caawiyo aan u dirayno siduu gobolkaasi ku xasili lahaa ee uga bixi lahaa danaha siyaasadeed ee la isdaba wareejinayna inay meesha ka baxdo